بسم الله dadka Soomaalida waan salaamay marka dhibi dhacdo waxa wanaagsan in intaad ka oran karto si ajar lagaaga qoro oo nafana u badbaadan hadad badbaadin karto waa idin salaamahaya waxaan lahaa madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Ciro iyo xukuumaddiisa haddii ay go'o Hargeysa mathematics aad u aragtaan inay shaqan weydo waxaan idin hayaa ruqsi mathematic carto nimankii gartay ruqsi magaasha la yiraahdo taqaanaa waa nimankii biological I don't know waxay adeegsadeen duurka bahalka la yiraahdo hoostiisa in biyo laga helo ee rujiye ee biyaha ka helay marka waxaan doonayaa mathematics ka beriga lagu helay ina deysaan idin soo gudbiyo haddana soo noqdo buugan maanta dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmeen dhibtaad aragtay haddii ay doonto ka soo socoto ee labada ugaas maanta aad arkaysaan declare a war ay yidhaahdeen bal buugan ummadii Soomaaliyeed yaa bantahay xeerkan reer ku leeyahay maxaa ku duugan maxaa ku hoos duugan bal hadda aynu isla eegno qofkii aan akhriyino bal si fiican u dhuux markaas aad fahmi doontaa xeerkani waxa uu ka turjumayay iyo cidda ka dambaysa xeerkan waxa lagu waxa 1840 something 60 waan ilaaway halka way sixi doonto waan eegi doonaa ku noqon doona ayaa buuraha la yiraahdo city ee imika Ethiopia ku yaala ayaa la fariistay 44 nin baan filaya 12 qoys ayaa haayeen xeerka halkaas lagu sameeyay qoys baa lagu talagalay markaa la yiraahdo Ciise ayaa lagu talagalay xeerka ilaa markaa wuu jiray dhibi kamay dhicin meesha sayl la yiraahdo aan u iman doono rabshadu ka taagan tahay way wada deganaayeen ilaa dirdhabay deganaayeen iyo Djibouti area-daasay deganaayeen dakhil iyo dhulkaasay deganaayeen Ciise weligood iskumay qabanin waayo sida caadiga ah madax dhaqameedka ayaa xeerka reerka haya markay isqadaan ku kala saara xeerkaasi nothing to do with reer kale reer kastaana uu leeyahay sidaan hore idinku macneeyay marka dhibi ka dhex dhacdo ayaa waxay xeer ka leeyihiin cuqaasha iyo madax dhaqameedka ugu garnaqaan nothing else xeerkan haddaba waxaan saddexda dowladood isugu raacday hay'adda UNESCO ay loo geeyay iyo waxa loo geeyay waa maxay waxa beesha samaroonku ay diidantahay aniguna aan arkayna waa maxay saashwatan waxa dabada ka riixay dowlad xeerkii reerka waa la siyaasadeeyay dowlad baa qaadatay dowladda golaheeda dhaqanka ama wasaaraddeeda dhaqanka iyo hidaha iyo warfaafinta filay in la yiraahdo ayaa berber garaysay rag baa loo saaray xeerka buugii hore loo qoray 90s-kii la qoray ayaa la soo qaatay Cabdalle wariyihii aad garanaysaan ayaa isaguna buugu qoray la soo qaatay dabaday ka riixeen markaa hay'adii bay u geeyeen waxay raaciyeen qoraal odhanaya haddaba eega map iyo qoraal ayay raaciyeen hay'adda UNESCO oo u qaabilsan UN-ta dhaqamada u qaabilsan maapkaas oo leeyihiin ilaa Ethiopia intay ka degaan ilaa Djibouti ilaa Somaliland intay ka degaan bay ku muujinayaan maapkaas waa nagu aqoonsaday marka dowlad la aqoonsanayo waxa la yiraahdaa territory-giina maapkiisa territory-giina xadkiina waa in la ogaado la keeno reerkana sidaas oo kale marka meel reer kula degan yahay adigu ma sheegan kartid map international kuma doonan kartid dowladana uma bandhigi kartid waxa dowladda Djibouti iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia saddexda wasiir ee dhaqanka iyo hidaha saddexdaana waa loo yeelay waa laga tasdiiqiyay way saxeexeen iyagoo aan eegin dhulka ay saxeexayaan cidda degan iyo tirakoobka cidda degan waxay ku qiyaaseen nimanka u geeyay hay'adda internationalka under the UN-ta in around 2 million Somaliland ay yihiin dadka degan around 2 million eega 2 million anu soo noqdo balada tiradu intay tahay waxa ku jirta bullaxaar buu maapku gelaya meesha la yiraahdo berbere agteeda ayuu gelaya maapku marka ilaa intan gabiilay dusheeda dhulkan oo dhan maapku maraya Ethiopia halkaas ka gelaya marka wuu isu furan yahay ilaa Ethiopia wuu isu furan yahay
saylac lug haye dhulkan oo dhan maabkuu maraya meel meesha la yidhaaha boon iyo dhulkan boorama laga xukumo dushiisa ayuu maabku maraya bal eega maabka intaa gashaan waxaa ku qortaa maab xeer ciise ama ciise territory ku qoro eega maabka maababka ku jira ee lagu gudbiyey applicationkii loo gudbinaya hay-adda si ay ugu recognize garayso internationally saddexdan dowladoodna u recognize gareeyaan shuruudaha ku jiraan waan idinla wadaagi ee hay-addan internationalkii waxay u qabanaysa waxay ka rabaan markaad intaa eegto waxaa la geliyay markaa siyaasad iyo picture in la raaciyo territorygoodii lama eegin dhibta ka timaada haddaba ee ka timaada dhulkaa laleeyahay ay sheegteen iyagu saylaco ay lala degan yahay oo ay sheegteen marka meel lagula degan yahay adigu ma sheegan kartid buugna kuma sheegan kartid adduunkana uma gudbin kartid anaa leh marka lagula degan yahay waa inaad sheegto dhinacaad ka degan tahay ama aad sheegto inta percentageka aad ka degan tahay way wada sheegteen ba waa saylac bal saylac aynu u nimaado dad allo muslim allowna yani gar ugu garnaq muslimnimo ugu garnaq saylac dib ugu noqday 18th century 17th century 1860 1850 ninkii la oran jiray ugaas nuur waa samaroon ugaasyada samaroon ninkii boqorkii oromada ee ku soo duulay halkan dilay waxay ahaan samaroon mililig 2 ninkii la dagaalamay waa ugaas nuur cismaaniyiinta waa ugaaska samaroon dhammaantood eega anuu meel kale ma eegin ingiriiska hortiina sharmaarka cali saalax oo reer burcaa oo ka ah amiirka dhowr iyo 30 sano 28 sannadood amiirka Ottoman Empire oo ahaa oo ka qabay ay isu seedahayeen ugaas nuur oo samaroon ugaaskiisa ah oo uu isagu weliba uu baritaaru ka dhigay oo uu ka sabooray xagga cismaaniyiinta deegaanka uu inuu ogol yihiin deegaanka isagu ugaas waxa caddaynaysa ingiriisku markuu yimina saxeexa ninka ku qoran ugaaska kaliya ku qoran madax dhaqameedka ciise maaha ugaaska ku qoran waa samaroon haddaba marka ilaa mililig lala dagaalamayo iyo boqorkii la oran jiray ay dileen waxa la oran jiray aboore miyo ha magaciisa waan idin xasuusan samaroon baa kula dagaalamayay bal qolada ciise waxaan weydiiyay anigu waxba idiin diidi karin oo xaq u leediin inaad degan tihiin bal idinku meesha ku maqnaydeen dowladahan cismaaniyiinta iyo ingiriis iyo markuu milil ku soo duulay saylac uu doonayay inuu qabsado waxa la dagaalamay gabaygiisa shiinleyda ee ugu horreeyay shiinley aynu maqallo gabayga ugu dheeree shiinleyda ugaas nuur buu ahaa ninkii kula dagaalamay ee ku dhintay ugaas nuur iyo ciidankiisa ahaa bal qolada ciise waxaan doonaynaa in aad idinku halkaa kula dagaalanteen mililig iyo dowladahan kala dambeeyay inaad noo keentaan caddaynteedii anigu reer burcaan ahay idinma kala xigo idin kala hiilin maayo laakiin wixii caddaanka arkay uun baan idinkana idin leeyahay waa bar horta noo keeno waa qodobka labaad waa difaaci saylac ilaa waqtigaa markaa ka timaada halkaas waxaan idin weydiinaynaa intii ka dambeysay ee ingiriis saylac bay ahayd degmadu markuu ingiriiska yimid degmada saylac bay ahayd Ottoman Empire-kii boorama muu jirin markaa doorashada gobol degmaa la isku xisaamin jiray saylac waxay degmo hoos tagta boorame ilaa iyo 1984 markii gobol loo aqoonsan 6 ayay ahayd waxay hoos iman jirtay saylac bal dib ugu noqday ingiriiskii iyo ilaa dowladdii hore ilaa 69kii soo gaadhay baarlamaanka ka soo bixi jiray bal dadka oo eega 3 jibaar bay ka badan yihiin 4 jibaar bay ka badan yihiin 4 jibaar ayay ka badan yihiin reer saylac ciise ka badan yihiin iyaduna waa qodob kale xaggee jirteen haddaa meesha leedihiin intii somalilan ay dhalatay hal nin baa soo saari kari weydeen baarlamaanka somalilan haddaad tirakoobkii eegay magaalada saylac waxa ka dad badatay boon
oo ay iyadu hoos timaado oo samroon ku degan yihiin iyadana waan jeclaa cadaalad baan idinku garnaqayna iska keen raaci mayne binu axmed iyo walow aanay jirin wax binu axmed la yidhaahdaa dadka laga dhaadhiciyey ee ay madoobe dirciisa yahay halkuu binu axmed ka soo galayna aanan garanaynin ma garan karo laakiin su-aasha isweydiintani waxa weeye tirakoobka bal eega ma jabuuti baa uga guurteen ma etoobiya uga guurteen biyo la-aan iyo leydh la-aan iyo iskuul la-aan baa uga guurteen anyway waa ka maqantihiin hal nin oo 5 kun soo baxayay ayaa somaliland ka soo saari kari weydeen what happened iyaguna imisay soo saareen how many 12 soo maaha ay soo saareen imise goor bay idinku labalaameen markaa including sayda oo degmo maxamed siyaad barre ka dhigay waa ka soo saari kari weydeen iyaduna waa su-aal isweydiin leh dowladaha hoose 200 baa lagu soo baxaa waa isla egtiin maantana maayarkii hore wuxuu ahaa reer awdal buu ahaa maantana idinkaa jooga bal waxaan doonayaa buuggan internationally waxa aad doonaysaan in laydinku aqoonsado oo buugga waxa ku qoran buurihii sid in la maalgeliyo waxa ku qoran oo qoladii UNESCO in la barotod garayn karo inay kharash la bixinayo mashaariica lagu horumarinayo buurihii city in lagu horumariyo mashruuc la siiya iyo soo mashaariic baa ku jirta hay'adda UN-ta yaa protect laga garaynaya markaa weeye yaa laga difaacaya weeye marka ay leeyihiin UNESCO waa la difaaci kara waa la protect garayn kara yaa protect garaynaya yaa si laga protect garaynaya ma Somaliland ma dowladda Soomaaliya ma reerka Samaroonka waxaan oo dhan dadka reer awdal mana waanay hadli karaynine way arkaan way ogyihiin waxay u dacwoon waayeen UNESCO waa laga dacwoon karaa waxa ku qoran waa ka soo dacwoon kartaan haddii aad diidantiin cidda la deganay maanta dowladda Somaliland waxay ahayd inay iyaga ugu garnaqdo midna u diidan midna inay UNESCO ay dacwad u qorto oo tirahdo dhulkan waa la wada leeyahay mar haddii maamku sheeganayo ilaa berbere agteeda waxay ahayd inay dadkan maanta dhintayna idinkaa mas-uul ka ah idinkaa mas-uuliyaddaa leh dad meel wada degan baa cid gaara siiseen oo cid gaara u ogolaateen cid gaara go-head ka siiseen macnaheedu iyagu xeerka may ogolaaneen waxay ogolaadeen waxa loo gudbiyey ayay recognize kareen waa recognition ayay samaysay hay-addu dadka caynkaa magacaale ee dhulkaa degan maabkii loogu gudbiyey arjigii loo qoray in ayaa shuruudaha in la caawin karo in loo samayn karo mashaariic horta waxaan u dhanbaa meesha u jiraa reer markaa boorama maxay arkeen dhulkaagoo la international garaysanayo 3 dowladood 3 wasiir oo dhaqamada ah ayaa isugu tegay oo saxeexay 3 dowladood maxay dhahay xeer ciise iyo xeerkooda oo buuggani qeexiyo xaflad loogu sameeyey tarigoodii sawirkoodiiba ayaa halkii chapter 5 eega muxuu idiin sheegayaa sawir kuma soo waxa lagu abalay gareeyay eega internetka galo waxa ku qortaan xeer ciise map of xeer ciise ku qoray xeer ciise maamka idin soo baxa dhoosha yar yalowga ah bal halkay galayso ee badda ka galayso xagga berbere eega maamku intuu leeyahay ballaadhi oo eega maamabka la sawiray ee la raaciyay applicationkii bal hadda eega I don't know reer awdal miwaanay hadli kareen cid ka mutacallinsani ma jirto muddada xeerkaa la kala saxeexanayay ee waxaa la gudbinaya halkay ku maqnaan reer awdal Somaliland laftigeedu markii Soomaaliya iyo territory-gooda ay kala qoranayeen ee maamka ku darsanayeen ee ay waxaan oo dhan sameynayeen ee Djibouti dabada ka riixay dowlad baa dabada ka riixay anyway reer awdal waa loo xoog sheegtay wixii qabiilka iyo territory-ga qabiilka haba dowlad la geliyay iyo siyaasad la geliyay awood baa la isticmaalay dowladda Djibouti dowladda Ethiopia waa dowladda dabada ka waday wasiirkooda arrimaha dabada waday wasaaradooda dhaqanka hidaha iyo dhaqanka ayaa wada waxaan oo dhan samaynaysaa laakiin Samaroon iyagu dowlad ma haysan dowlad ka difaacda ama xaqooda oo u dhicisa ama maamka ka qabata loo sheeganayo ma haysan ilaa imankana dowlad Somaliland oo eegtay waxaan oo UNESCO intay arji u dirto tirada wixii la idin soo gudbiyay ka noqo weeye because of rishada maanta dhacday waxay ka timi waa halkaas ay ka timi hay'adda iyo dowladaha ka dambeeyay bay ka timi in maanta dadkani ay isku kacaan ay isu dhaartaan
wixii dambi ka yimaadana iyagaa leh dowladda somalilan waxaan odhan lahaa war balbuugga dib ugu noqdo eega war balbuuggan eega